السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كسو دوادا channel كيغا قعمة فرن اي قلبي فرن ومانت اي مقال عصب ما شاء الله محاني ودا عنطير او هيلتي اي وحاك سميسان انا عشو adiga qado waad qariyan kartaa soo dhawaaw gacmo furan iyo qalbi furan channelka waa channelkaaga adoo maanta kugu horeeyo waxaan kaa codsanaa inaad subscribe-ka noo taabatid kadib gambalaalka aad riixdid soo dhawaaw daawasho wacan bismillaah halkan waxaan ku haystaa nus kiilo chicken waxaa waaye boneless chicken maasha Allah si fiican aan u soo dhaqay waana soo jarjaray waxaan ka dhiganaa mushkaki chicken mushkaki maasha Allah ulahan sursureena hadda waxaan ku daray filfil iyo xawaaji kaari iyo cusbo meeshan kale waxa ku jira maxaa la zanjabiilka qoyan iyo toon isku soo tume maasha Allah spices kaas meesha yaalan waa lagu darayaa waxaa la rabaa jirka inay ka dhismato dhadhanka maasha Allah waxaan ku soo dar waxaa waa caano garoor waxaan rabaa inaan la dhigo paprika ku daraa garam masala mix masala turmeric waxaan kaloo ku soo darayaa chicken masala maasha Allah spices markaan ku daro waa isku walaaqa kadib fridge-ka la dhigayaa waxaa rabaa inay frinjeerka xoogaa la yaasho maasha Allah caanaha garoorka wuxuu ka saacideynaa chickenka inuu soft oo noqdo soft kabisa ku noqonaya dhadhan fiican ana hadda ka qiyaasana spices laakiin adiga qaando ku isticmaal waxaa laga rabaa kulli teaspoon maadaama spices badan lagu daraayo kan waa cusbanaa marka huruudda waxaan ku darayaa afkeeda hore qaandada afkeeda hore maasha Allah aad u fiican huruudda kala beel siinaysaa healthy waaye marka intaas aan dhex gelinaa si fiican isku walaaqa jirka inaad ka gashaal rabaa oo hal mid isku noqoto maasha Allah halkan waxaan ku haystaa bataati aan soo kariyay waxaan ka samaysan rabaa jabati aan kaga bataatiga waan soo jabati laga sameeyay rabaa waan soo jijibiyay kadib waxaan ku daray hal xabo ukun waxaan kaloo ku qasayaan caano garoor waxa waa jabati oo healthy oo macaan badan maasha Allah marka saas u qastid oo hal mid isku noqdo burkan ku soo shubaaya burka isticmaala waxa waa ugu yaraan nus kiilo camal jabatigan waxaa ku dhasaan inta u samaystid soft waay maasha Allah very soft aad u macaan badan yahay waxaan ku qasayaa caanahaas garoorka caanaha caadi waa ku qasan kartaa laakiin garoorka kaga sii mac maasha Allah si fiican u soo qasayaa oo isku soo noqoneynaa asxaabteeda jabatigi waan soo qasay daayto wuxuu yaal muddo 30 minutes cid kasta fidiska way ka seesaa inay 30 minutes ku yeesha fiican marka waan soo fidi waa kana birtan soo saare halaas waa la soo wada ka saamakiino waqtiga ugu dheeraada nacaya maasha Allah
saliid yar aan kusoo shubayaa. Jabaatiganeetu wuxuu ku yaali karaa xataa 2 maalin ku dhahay ka badan. Maasha Allah waxaa waaye soft waa jileecaan ku dhahay asxaabe. waayo bataati aa laga sameeyo maasha Allah ilmaha taa u fiican yihiin. wax yar saliidtaas ku siinaysaa mjadoo soo fuuraya. maasha Allah saas quruxda badan ku soo baxay. Waaka saxanka soo saara dhac mid kale soo saara hadane. taasaa ku soo wada dhameynaa asaga dhan. marka caawa cashadan karinay korontada naga tagtay waa iska taqaanin korontooyinka oon Afrika mugdi markaas mugdi ku tahay karaali noqda. kaamirada nalkeeda leh waxa saas bright set soo bixinaayo. maasha Allah waxaa ku jabaatiganeetu saaid u macaan badan yahay. waana soft waana shaqo yar aan ku dhahay baradhadaas le karinaysaa dhac ukunta sokor dhan ma lagu darin xataa ukunta halka xabo iyo caanaha garoorka iyo cusbo bis aa lagu qasay si fiican u xashaysaa waxaa dhigay 30 minutes meel kadib baas u duubanaysaa. maasha Allah quruxan ku dhahay. halkan waxaa ku haystaa French beans kan zucchini iyo carrot biyo dabka ii saara way karkarooyaan shab aa ku siinaa markii 2 mar soo buriso waa ka soo qaadaa. waxaa rabaa crunch inay noqoto. meeshaan dooradii fridge ka soo bixiyay muddo ku jirtay 1 saac camal qudaartana la isticmaalayaa. ulahana marka waxaa la rabaa inaa biyo la dhigtid si kaaga gubanin hadhoodi. maasha Allah marka hore waxaad gelinaysaa 1 xabo yaanyo kadib chickenka gelinay barbarooniyaasha kalarada gelinaysaa si kala furu noqoto. mugdi karaali noqdo walaalayaalo maxaa la dhahaa koronto la'aan ahayn xal marka cajalkan duubaye korontada waa naga tagto. maasha Allah saas ku soo baxdo quruxda badan. waa casho yar oo simple oo macaan badan oo caafimaad leh. habeen kasta cunto fuul ma la cuni karo bariis iyo baasta iyo marka habeen cid in loo bedelo way fiican tahay. maasha Allah asxaabta channelka ku cusub waxaan ka codsanayaa
inaad subscribe-ka noo saabatid gambaleelka aad riixdid saad u noqotid daawadaha koowaad. haddaa nala joogi jirtana like iyo comment intaba nagu caawi. waxaa waa dhiirigelinay noo tahay la-aantiin channelkan ma shaqeynaya. marka waxaan iga mahad celinayaa mar walbo sida quruxda badan ay la socotiin. waad ku mahadsantihiin 100%. maasha allah saasaa kusoo dhammeynaya. waa kaasaa waxaan soo saaray birtaawo dabka ovenka geli lahaa. ovenka marka koronto ma ii joogto marka liskuma dhibaayo. birtaa dabka soo saare saliid yaraa ku shugaysaa. waxaa soo saaray marka ulaliyaa soo saaraysaa. marka saas le u twist gareynaysaa ama waa warwareejinaysaa soo kugu karo 4 goono. maasha allah waa kaasa wili wuu noo saaran yahay. waxaan kusoo shubay dheecaan yar oo doorada oo waxay ku heri caanaha garoorkii saasa uga gedinaysaa. haddana waa soo saara birta kuwii waa ii kareen nooc kala soo saaraa. waxaan kusoo darayaa maxaa la dhahaa soya sauce yar aan kusoo daray. kan waxaa rabaa inay xoogaa dark ii noqoto. dadaa soya sauce dhibaya nala joogo marka ana qaybtan soya sauce kusoo daray iyadoo saarantaad birta. maasha allah saas le uga gedinaysaa adigay kaa gubanin leh. muhiimka inay kaa gubanaa. maasha allah waa inoo kare diyaar waa markaan. quruxaan ku dhamacaan dhanaan intaba yaa qofkii cuno lee ka sheekeyn karo. qayb kala soo saar saasaa kusoo wada dhammeynaa insha allah. maasha allah asxaabey waa kaa saas kusoo baxa quruxda badan. waa ceeshka iyo qudaartii soos oo mayonnaise iyo ketchup aa lagu cunayaa iyo basbaas manii soo duubin. marka waxaan iga mahad celinaa sida qurux badan ay la socotiin. haddaad ku cusub tahay like subscribe like comment share intaba nagu caawi. inta videoga kulmeen waxaan iga tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.